waxaan ku dadaalaynaa inaan soo kordhino inaan sii kordhino qalabkiina haddii alla horumarino haddii qalabka kordho shaqadana waa kordhaysaa. xarunta waaxda dabdemiska ee dowladda hoose xamar oo ka mid ah waaxaha ugu muhiimsan ee dowladda hoose ayaa waxaa maanta soo kormeeray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish isagoo u kuurgelaya sida ay u howlgalaan howlwadeenada waaxdaasi iyo baahiyaha ka jira adeegyada la xiriira gurmadka degdega ee dabdemiska. duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish oo la hadlay madaxda iyo shaqaalaha waaxda dabdemiska iyo waaxda gaadiidka gobolka banaadir isagoo ku bogaadiyey howlaha muhiimka ah oo ay u hayaan bulshada caasimada ku dhaqan, isagoo intaasi ku daray in maamulkiisa uu wax badan ka qaban doono baahiyaha ay soo gudbiyaan hogaanka waaxahaasi. dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa kormeeray xarunta gaadiidka dowladda hoose xamar iyo xarunta wakaalada horumarinta dhismaha qaranka Soomaaliyeed, halkaasi uu kusoo dhaweeyey maareeyaha guud ee wakaalada dhismaha Soomaaliyeed saree guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, iyadoo kormeerka ay qayb ka ahaayeen gudoomiye ku-xigeenada gobolka banaadir iyo xogayaha guud ee gobolka. mas-uuliyiintan ayaa kormeer socda ku maray qeybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay xaruntani, kuwaasi oo ka mid ah warshadii dhismaha iyo qeybta farsamada oo u baahan dayactir iyo dib u habeyn lagu sameeyo si loo xoojiyo mashaariicda lagu horumarinaya dib u dhiska caasimadda. waxaana xaruntani ay qayb ka ahayd xilligii birisimaadkii kuwa kaalin mugle ka qaata dib u dhiska iyo horumarinta magaalada muqdisho. kormeer kadib ayaa waxaa warbaahinta qaranka la hadlay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish. xeradan waxa yaala qalab fara badan oo ay leedahay dowladda hoose. waxaa hadda gacanta ku haya wakaaladda dhismaha Soomaaliyeed oo maareeyaheedu oo dhinaciga bidixda oo taagan yahay Generaal Bashiir Maxamed Jaamac Kaynaan. khayr Allah siiyo. isla markii uu gacanta ku dhigay oo aan filayo inaysan bilba dhamayn ama isbuucyaba ay tahay, wuxuu ku guuleystay inuu kiciyo warshadii shubka oo in muddo ahba densanayd. sidoo kale wuxuu bilaabay warshad kale oo interlog ah way shaqaynaysay 2 bilood ilaa 2 bilood ay shaqaynaysay. marka waxa uu ballan qaaday muddo dhow يعني inuu dib u kicin doono warshadii oo laamiga oo iyaduna ah midaan dhinaceena bidixda ka muuqata. sidaa darteed waxaa muuqda dadaal agar la'aan ah oo nafurnimo ah oo runtii aan dhihi karno aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay qof kastoo muwaadin oo Soomaaliyeedna ay mudan tahay inuu ku daydo. marka halkaas ayaan maanta soo booqanay. waxaa kaloo soo booqanay xaruntii dabdemiska iyo soolarka ee dowladda hoose. nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.